أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان. جزا الله الشيخ أحمد خير الجزاء على ما قدم وبارك الله فيه. وصدق الشيخ فالعلم النافع ما أورثك خشية وما سواه وبال على صاحبه. والآن مع الشيخ حسن كافي، فليتفضل الشيخ مأجورا غير مأزور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا دان إسكاله عليه نوافجيي inaan soo ziyaaranno oo soo booqanno buldaantan iyo magaalooyinkan aada iyo aadka maaragtay u wanaagsan. ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadintii ka soko waxaan ku mahadinayaa culummadii iyo walaalihii na soo dhoweeyey si aada iyo aada u wanaagsanna noo marti qaaday, jazaahum allahu khayran. waxaana ka cudur daaranaynaa darsi qiimo badan oo tafsiir ah, tafsiiru kalaami illaahi caza wajal ee masjidkan ka socday inaan caawa sabab u noqono in darsigii la hakiyo. waxaa fiicnayd kulligeen inaan darsiga dhagaysanno kana wada faa'iidaysano, laakiin sheekha jazaahu allahu khayran uu nagu karaameeyey inuu booskii darsigii uu yidhaahdo kelimad hala jeediyo. sheekh axmed oo kelimadda iga horreeyey wasaayaad badan iyo tawjiihaad badan ayuu sheegay. waxaan rabaa intaas uun inaan ku daro wax yaroo tatimo ah oo dhammaystira. waxyaabaha sheekhu nagu waaniyey waxaa ka mid ah al-ikhlaas, in camalka ilaahay loo khaalis yeelo subxaanahu wa tacaala. ikhlaaska in badan waa la sheegaa, in la sheego way sahlan tahay, laakiin in lala yimaadaa way culus tahay, way adag tahay. bacdu salaf waxaa laga soo naqliyey oo ay dhihi jireen, naftayda kulamaanan jihaadin shay intaan kula jihaaday ikhlaaska. in yarba waxay u baxsanaysaa naftu waxyaaba ikhlaaska wax u dhibaya. ikhlaaska waa aasaaska camal walbo saalixa. ahmiyadiisana qof walba uu garanayaa, gaar ahaan dadka dalabatulcilmiga. laakiin waxaa isweydiin mudan, sidee suuragal ku tahay inaan ikhlaas la nimaadno? maxaase ka qayb qaadan kara inaan ikhlaaskii aan la nimaadno ku dadaalno? su-aashaasi waxaa nooga jawaabay alimaam ibnu lqayim raximah llah fi kitaabihi alfawaa'id. wuxuu yidhi, haddii aad doonto inaad ilaahay subxaana wa tacaala camal u khaalis yeesho, laba arrin marka hore waa inaad gowracda buu yidhi. labada arrin adigoon gowricin oo aadan ka takhallusin, suuragalku ma aha inaa ikhlaas la timaado. labada arrin midka koowaad waa aطamacu fi dunya, midda labaadna wuxuu yidhahda waa xubu hanaa. طamaca adduunyada, rabitaanka iyo jacaylka adduunyada waa inaad marka hore meel soo dhigtood soo aasto. arrinta labaadna wuxuu yidhaahda ammaan jacayl waa ina ayadana meel iska dhigto. labadaasi adigoon soo gowricin wax rajaa lagama qabo buu yidhi inaa ikhlaas la timaado. maxaa yeelay intay labadaasi aad ku sugan tahay, ikhlaas suurtagal maa inuu xaggaaga ka yimaado. labadaasaa dhaawacaya, ayagaa kuu diidaya. kadib wuxuu ka sii hadlay sidee labadaa arrin lagu gaari karaa, sidee loo gowrici karaa oo looga takhallusi karaa.
wuxuu yidhi atamac fi dunya waxaa looga takhallusi karaa qofka inuu ogaado ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu yahay midka risqiga bixiya addoommadiisana irsaaqa qofkana intuusan dhalan ka hor risqigiisu u qornaa sida nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam lan tamuuta nafsun xataa tastawfiya risqaha wa ajalaha fattaquu llaha wa ajmiluu fi alab nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lehay naf dhiman mayso ilaa ay risqigeeda iyo ajasheeda oofsato oo waqtigeedu dhammaado ilaahay ka baqa oo dalabka wanaajiya sidaad wax ku raadinaysaan si xalaala oo wanaagsan wax ku raadiya taa waa inaa qofka marka hore niyadiisu ay degto oo aada iyo aad ay uga dhaadhacdo hadduu middaa helo niyadiisana iyo qalbigiisuna ay raasikh arrintaa uu ku noqdo atamac fi dunya meeshii waa ka baxaya iyo adduunyadu isa siinayo qofku iska daba tuurayo midda labaad ee ah xubu thanaa ammaan jacaylka waa meelaha ugu badan oo ikhlaaska laga dhaawaco qofka markuu doono inuu cibaadaysto ayaa waxaa laga yaabaa qof ku weyn inuu masaajidkii ka arko markaasuu wuxuu isleeyahay maanta salaada si fiican u tuko maxaa yeelay fulaan baa jooga yuusan kaa arkin khata ama khalal salaaddii kaaga jira si sahlu qalbigaaga ugu tuurayaa markaasaad waxaad u tukanaysaa si ka wanaagsan sida horead u tukan jirta ma ilaahay dartiiba ilaahay dartii mahe waa liajli fulaan soo ma jeeda ikhlaaskaasi wuu dhaawacay ikhlaaskaagii wuxuuna kaa soo galay ammaan jacayl ayuu kaa soo galay cilmigii adoo baranaya oo dadaalaya ayuu qalbigaaga wuxuu ku tuurayaa cilmiga u baro si lagu yidhaahdo caalim baa tahay si aad uga mid noqoto culummada faraha lagu fiiqo oo fara ku-tiriska ah si lagu ammaano oo bulshada dhexdeeda aada magac iyo maamuus ugu yeelato qalbigaaga ku tuuraya ikhlaaskaaga waa dhaawacmay marba haddaad cilmiga u barato caalim ha lagu yidhaahdo ama qaari ha lagu yidhaahdo ama dhaqaalo ku hel oo adduunyo ku raadi cilmigii sharciga ahaa dhaawac baa ku gaaray idan ammaan jacaylka waa khatar weyn oo qofka in badan ka hor istaagta inuu ikhlaaska ku dadaalo ayada sidee lagu daaweyn karaa ammaan jacaylka daawo ma leeyahay qofka siduu iskaga difaaci karaa ibnulqayim raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay wuxuu iskaga difaaci karaa qofka inuu ogaado alkhaafid waalraafic inuu ilaahay yahay subxaanahu wa tacaala waxa wax kor u qaada waa allah waxa wax hoos u dhigana waa allah ilaahay qofkuu doono waa dulleeyaa qofkuu doonana waa ciseeyaa midkuu doono mulki iyo boqortooyo buu siiyaa midkuu doonana ilaahay waa ka qaada qul illaahuma maalika almulk tu'ti lmulka man tashaa wa tanzicu lmulka miman tashaa wa tucizu man tashaa wa tudillu man tashaa biyadika alkhayr innaka calaa kulli shayin qadiir qofkuu doono ilaahay waa dulleeya subxaana wa tacaala idan qofkan aada ammaanta ka raadinayso korna kuuma qaadi karo hadduusan ku ammaaninna hoos u dhici maysid haddii allah subxaana wa tacaala agtiisa aad tahay qof sharaf leh karaamo leh cinda allahi subxaanahu wa tacaala dadku waxba kaa dhibi maayaan wuxuu soo qaatay ibnulqayim raximahullah ninkii acraabiga ahaa ee nebiga ku yidhi sala allahu calay wasalam yaa rasuula allah ina dammii shaynun wa madxii zayn wuxuu yihi rasuulka ilaahayo aniga ciddaan wax ka sheego arrintaasi dhaawac bay ku keentaa qofkaasi way xumaysaa haddaan gabay ka tiriyo ama aan wax ka sheego waxay ku noqotaa bar madoobay qofkaa ku noqonaysaa way xumaynaysaa qofkaan ammaanana ammaantayda qurux bay u noqotaabu nebiga calayhi salatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay daaka allah kaas waa allah buu yihi subxaana wa tacaala midka cidduu ammaano ay ammaanan tahay ciddii uu dhaleeceeyana ama uu jarxiyana ay dhulka gelayso baaba-ayso waa allah subxaanahu wa tacaala ilaahay baa iska leh taa qofku wuxuu yihi waa in maskaxdiisa ay gasho qalbigiisa ay ka dhaadhiciyo hadduu taa gaaro xubu thanaa waa ka takhallusi karaa oo meeshuu ka saari karaa labadaa cudur hadduu qofku ka marnaado waxaa u sahlanaanaya buu yihi ibnulqayim raximahullah inuu ikhlaaska la yimaado si marka walaalayaal aan ikhlaaska ula nimaadno labadaa cudur aan la dagaalano
labadaa cudur aan la dagaalanno adduunye jacayl oo dad badan laga yaabo inay qaarkood xataa cilmiga u baranayaan liajli dunya soo adduunye iyo dhaqaalo uga heli lahaa sidoo wax ugu soo xasilin lahaa qaarna ay laga yaabo inuu cilmiga u barto si maaragta loo amaano waa labadii cudur sheekhu sheegay way labadaa cudur adoon la dagaalamin waa inaadan ikhlaaska xaggiisa u dhaqaaqin labadaa baabi'i marka hore kadibna u gudub inaad ikhlaaska ku dadaasho waxyaabaha aan isku dardaarmayno walaalayaal waxaa ka mid ah markaan leenahay waan dardaarmaynaa dadka ugu horeeya loo dardaarmayo waa annaga nafteenna marka koowaad u dardaarmayna oo idan kala mid baan nahay cudurradaan sheegaynoo dhan sidaad ugu baahantihiin baan ugu baahannahay inaan nafteenna kala dagaalano waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah oo qofka ardayga ah ee daalibu cilmiga ah inuu ku dadaalay aada muhiim u tahay fursadaha inuu qofku ka faa'iidaysto fursadaha hadday tahay caafimaad waqtiga qofka markuu caafimaad qabo inta badan ma dareema nicmadaasi waa iska soconnaa waan orodnaa waxbaan cunnaa waxbaan cabnaa laakiin markaad isbitaallada iyo tagtaan mustashfayaadka markaasaad waxaad ogaanaysaa nicmada ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala baaxadda ay la eg tahay markaa aragto dad badan oo sakaraada qaar waxa weeyaan aan neefsa karin qaar dhinaca ma aragta saxaradii looga saarayo dhibaatooyinka faraha badan ee dad badan haya waqtiga firaaqada waqtiga aad caafimaadka qabto waa fursad qaaliya waa inaad ka faa'iidaysato haddii aad tahay qof qaniya oo hanti leh oo ilaahay dhaqaalo ku siiyey subxaana wa tacaala ayadana waa fursad waa inaad uga faa'iidaysato sadaqaadka iyo duruqul khayraat inaad ku bixiso haddii waxa weeye firaaqa aada leedahay firaaqada inaad ka faa'iidaysato intaadan mashquulin ka hor nabiga sala allahu calayh wasalam kamaa fi xadiidi ibni cabbaas wuxuu aada noogu booriyey ouna amray inaan 5 arrin ka faa'iidaysano intaysan shar arrin ugu imaan iqtanim 5 qabla 5 5 ka faa'iidayso intaysan 5 imaan shabaabaka qabla haramik dhallinyaronimadaada ka faa'iidayso intaadan waayeel noqon oo da-du ku haleelin qofka markuu dhallinyaro yahay waxyaabo badan uu awoodi karaa inuu sameeyo maxaa yeele waa waqtiga ugu xooga badan yahay ugu nashaadka badan yahay waa waqti ugu firfircoon yahay waa in laga faa'iidaysto waxbarashada dhallinyaronimaday ku fiican tahay cibaadadana dhallinyaraday ku nashaad badan tahay qofka markuu dhallinyaro yahay oo shaab yahay ولذلك في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم وحول 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله تضبطاسي وحا كمدا وشاب نشأ في عبادة الله نندل يرى وعبادة الله كبر باري دل يرى نمضوا فرصة بدن وفوائدنا ويلاضهي دع بدن إيه أخطاء بدن ويلاضه معايا لقفك دنا أود ينشاط وكهيا جانب كلام الشهوات باكفرا قراتك عقلك أضياشنا ملها يدجنانتي أضياشا حاجة مركا طيش يفضيل سوق قليل هدي إلهي وافجي مركا إنه أوجع عبادة إلهي سبحانه وتعالى أو علمي عبادة وكد دار صغر لن يرى والتوفيق من الله سبحانه وتعالى ضدك هلنا يأدو يريهين وعنا كم من نقنايا تضبط النبي صلى الله عليه وسلم حديثك وكشيء تضبط السين في الرسول كشيء صلى الله عليه وسلم marka dhallinyaronimada in laga faa'iidaysto oo dhallinyaradu ay ka faa'iidaystaan dad badan oo hadda aan dhallinyaro ahayn oo odayaal ah markaad la sheekaysato waxaad dareemaysaa in badan inay ka xun yihiin waqtiyadii soo maray aysan ka faa'iidaysan laakiin inuu qofku shallaayo inuu ka qoomameeyo waxba tari mayso ilaa soo noqon maayo cumriga waa sidoo uu tagay maanta marka intaad haysato inaad ka faa'iidaysato شبابك قبل هرمك أرنت الله بعد النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام وحوي وصحتك قبل سقمك عافماتك كفى إذا سئنت هذا حنوسا كون وغناك قبل فقرك غني النمذا هذا كفى إذا سو فقرك هرتي أنت هذا فقير نقن هذا فقير نقطة هذا واحد الله بحذا ما هي ستيد لكن صدقاتك كد دال أنت هذا أنت لها أو إلهي وحسينه سبحانه وتعالى
وفراغك قبل شغلك فراقذا كفى إليسو أنت هذا مشغولين كهور ومشوا لها عمر رضي الله تعالى عنه تعلموا قبل أن تسودوا والعلم برتبوا أنت هذا المسؤولية حلقة هذين كهور البخاري رحمه الله وتعليقي وحير وبعد أن تسودوا مسؤولية كدنا إن علمك لبرتو ضد غير يلاتو هذا حلقة علمك كتري ميسي لكن فرصة حالته هوريكو بدنتها وقف كنتو دان يرada yahay wax mashquulinaya aysan jirin masaariif waajib ku ah raadinaya aysan jirin waa ka fursad badan yahay markii mas'uuliyadu ay korto nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu leeyahay wa faraaqaka qabla shughlik firaaqadaada ka faa'iideyso intaadan mashquulin ka hor imisa dad hadda mashquulka uu ka celinaya inay diinka bartaan oo cibaadada ku dadaalaan maalin walbana jecel say wax baran lahaayeen qaar baa la ilimeynaya inaysan fursad haysan jeclaan lahaayeen jaaniska iyo fursadaha aad haysataan inay helaan laakiin mashquulaad haysta awgeed aysan awoodi karin xaalkiinoo kale inay ku sugnaadaan waxaa u dambeysay uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam midka shanaad ah wa xayaataka qabla mawtik noloshaada ka faa'iideyso intaadan dhiman ka hor mar haddaad dhimato waa la soo laabay saxiifadaadii iyo acmaashii lagu qoray waa soo xirmatay baabu tooba waa kaa xirmay mar haddii geeridu kuu soo xaadirto camal saalixo markaa kadib aad qabanaysana ma jiro marka noloshaada ka faa'iideyso waxyaabaha muhiimka ah waxaa ka mid ah oo nafteenna iyo dalabatulcilmiga oo guud ahaan aan u dardaarmayno waa atajarudu lilxaqi qofka inuu xaqa u tajarudo wixii aad garatay ilaahay ku fahamsiiyey subxaanahu wa tacaala inaad ku adkaato hawada naftaadana aad ka hormariso waxyaabo badan aad naftu jeceshahay waxaa laga yaabaa wax xaqii khilaafsan in naftaadu ay jeclaato duruuf iyo arrimo jira awgood xaqa ha ka sarreeya mar walba xaqa u tajarud waxaa suurtagala qof aad jeclayd qalbigaaga ku weynaa inuu xaqi khilaafo maaha inaad tidhaahdo hebel hadduu xaqi khilaafay aniguna hebel aan raacaya صح معه ديننا معه هبل اتباع كوما لهن اتباع وحقوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم قف والرسول كسوهر عليه الصلاة والسلام هذا الكيس والله قاتا وانا للردية وحيس حقه وكوافقنا والله أقبلا وحو حقه خلافنا ولا الردية عدو دونها هذا كليه وحن الله كلا قاضا حدو قف كاسي خلضمي ويهي عالم السنة احترام كيسا مقام كيسا أيضا ولا دوريو أيها خطأ يسنى للردية هدي وياهي نمرك هرب صاحب بدعاء هانا هذا أسيق إيا مخالفة ولا يمدبا أول يسن كرامة لهين لبضوبا ولا سلا طوريا لكن مروى الباهي خطأ ومردود عدو دونها كيما وحيابها الدعوة السلفية أي أوجد دوانتها هي دعوات كمخالفة وحاكمة إن يصل لهين أمير يقائد قونية أو بيعك قاضي أو طاعة وضيكوا طاعة أي واجب كتا سيدا أوررد أنت بدن أيو بسينه قائد مرة كسوك يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيكوا ولا لوبين اسكو رات سدان اسكو حريريان قف والباع إنه راعي طريق الرسول عليه الصلاة والسلام على فهم سلف الصالح الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة أنت سأسكو كانت قراوة نما قارنا اسكو مكينين حرير أرور نما أو كرد حيسان مجرو أما عربي هالنقضو أما عجمي هالنقضو أما أسود أما أبيض نعضونا وحمد أيوة منهج اعتقاد قفك عقيدة صحيحة خلافة هذا وحي مركه هره لغو ولا لغو بو كتغي اسغا خلافو كليخده لغو راعي مايو وانا لغو ردينيا ان مركه قف معينه اما شخصيه laga dhiga ramzi la fiirsado la eegto dadka si gooniya loogu itixaamo la yiraahdo hebel hadaad waafaqsan tahana ahlan wa sahlan hadaad hebel khilaafsan tahana wax soo dhaweyna iyo wax xiriira yeelan mayno
تا أيضا منهج السلف كثير سنين أو خلافا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعليه هذا لا ذو قيمة بدل وعير من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قفكي وحوير قف سوتاغا شخصي معين شخصي قاسي عدو دونها هذا شخصي قدرتي وحكو حريرية أسيقا درتينا وحكو لعليتما أي هذا الكيس قفكي وافقئي فعل كيسان وان حريرنا يا فعل كيسي هذا الكي وحي خلافنا وقوينا يا قفكي هذا وحكم يهبوا يركوب الدين كودا كلا جيي شيعي فرقنا النقضي قال هذا سو كم يهبوا ووحي أحزاب تلو قد جاي إلى أن أضرارته وررضوا إليه وحكم إذا تعصبك waxyaaba looga digo waxaa ka mid ah tacasubka iyo walaa iyo baraa dayiqo dad gaar la siiyo muslimiintii kalena lagala gaar noqdo qofka talib cilmi waxa inuu iska ilaaliyo kun mutajarridan lil haqq noqo qof xaqi u tajarrud meeshu ka jira baad al haqq wa dallatu al mu'min qofka mu'minka waxa ka maqan waa xaq xaqa haduu zayd la jiro iyo haduu amar la jiraba adigu xaq raadi مذاهبته وحاو مشهور سن أفر مذهب سيدا معروف كا هذانا أهل العلم وحي كديان إن الله تعصبه مذهب معين وآتراهضو أنو شافعي بان أهي مثلا وحو شافعي يري أما مذهب كشافعي أو قبو أيان قبا جملة وتفصيلا صح معه سيدا قاركود أي رهدين أنا شافعي ما حييت وإن أموت فوصيتي للناس أن يتشفعوا أنا شافعي وأنا هيك هدان نولا هي هدان دين طبع شافعي ما كل ما نيا ضد كان وحان أقدر دار ما إن شافعي يلا نقول حنبلي أسجن جوني واستوى وحويري أنا حنبلي ما حييت وإن أموت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا ضد كنا حنابلها النقضان مالك يصير صاكله ما يقدم بان لنا دين كان واحد أئمة مجتهدين بيهاي ويدلالين جزاهم الله خيرا لكن أقول أذيك اتباعك واجبة إلهي كوم واجبين إن شافعي الراعو سجارة إن مالك سجارة الراعو ابن رجب رحمه الله تعالى وحليه سيدا صوكل المعلمين واير هذا اللمضة وحوير إمامك مجتهد كأه markuu ijtihaado ee uu gafo asiga waa maajuur laakiin ninka taqliidaya waa maazuur waa dambiile ina tiraada hadhowta aniga shaafici baan raacay cudur daar ilaahi agtiiku ma maxay ila shaafici imaam mujtahid buu ahaa xaqi buu raadiyay waa dadaalay sidaas ula muuqatay laakiin adiga xagee aaday adiga shaafici baad ku xiratay xaq maadan raadin mutajarrid lil haqq ma noqon shaafici kaliya fiirsatay adiga dambiila tahay shaafiicina waa maajuur hatta haduu gafo maxay yeelay mujtahidku haduu gafo hal ajr buu leeyahay dambigiisuna waa maghfuur haduu asiibana laba ajr uu leeyahay laakiin adigu labada mid adigu wax ajr ma lihid bal dambiila tahay maxay yeelay xaqi ma raacin ee waxa taqliiday imaam aa'imadii kamida waxa ajiiba marka أرضينا هي طلبة العلم مركي اللي يراد الشافعيان لتقليد كما الجيشان وكما النحام ولا عادي مركي اللي يراد مالكيان لتقليد ولا عادي لكن شيخ معاصر مركي اللي يراديان لتقليد قارع عرونا يوقبنا ما أي مدرس وكويه كما وينا إذا هو عذر قفك كجير وين بس كداوي وعذر داو باهن منع الصفة اللي يقانو ذاتك أهل السنة أهل الحق قفك إنه متجرد حق ونقضى على الرب ما شو ضمن حقها كجرو صفة ولا ليوا صفة مهمة تعصب إن تكمرناته كتاب رسالة يرب وهذا فائدة بدن ليها المعلم رحمه الله أو ليراد القائد إلى تصحيح العقائد وحكينا يا تسالوين قفك واسكو قرن كرو إنه متعصب يه هذا اسفهم كربو ليه تسالوين وكينا
wuxuu leeyahay haddaad sifadaas iska aragto ogow inaad mutacasib tahay tacasubkana dadku waa u dhuuntaa adoon isfahamsanin inaad mararka qaar mutacasib noqonaysa ma ogid inaad mutacasib tahay waxaa laga yaabaa inaad manaabirta ka leedahay maalin walba war xaqa hala raaco aniga muqallid ma ihi fi lxaqiiqana waxaa tahay muqallid mutajallid litaqliid see isku garan kartaa wuxuu leeyahay dhowr tusaale u keenay wuxuu yidhi maalan xadiid aad rabtaa inaad baarto xadiidkaasi maadan ogaanin weli xaalkiisa ma baarin hadda kadib aad rabtaa inaad baarto xadiidka markaad baarto haddaad aragta xadiidka inuu daciif yahay baxigii hadduu ka soo baxay xadiidka inuu cilla leeyahay markaad cillada aragto haddaadan ku farxaynin oo aad ka naxayso tacasubaa kugu jiraba sixada xadiidka haddaad si gaara ugu farxaysana tacasubaa kugu jira maxaa lagaa rabaa waxaa lagaa doonayaa buu yidhi xadiidka markaad baaraysa inay niyaddaada ahaato natiijada inaad niyaddaada ku xirto oo hadda aadan jaanib jeclaana la rabaa jawaanibta ka mid a waa inaadan sii jeclaan marka hore hadda mararka qaar waxaa dhacda mas'ala adiga agtaada kula fiican oo raajix kula ah mas'aladii waxaad rabtaa inaad xaqiijiso baxdi baad galaysaa mas'aladii aad qabtay wax ka soo horjeeda markaad aragto waad naxaysaa xadiid khilaafaya markaad aragto waxaa is leedahay waxaa fiicnaan lahayd xadiidka cid daciifisa inaad hesho waxaa fiicnaan lahayd xadiidka inuu dacfi ku jiro idan ogow inaad mutacasib tahay haddii niyaddaadu sidaa tahay tacasubaa kugu jira wuxuu yidhi haddii imaamka madhabka aad u nisbo sheeganayso shaafici oo kale maalan hadduu mas'alo qabo ee markaad xadiidka aragto xadiidku hadduu daciif yahay kana soo horjeedo madhabu shaafici haddaad ku farxayso hadduu madhabu shaafici waafaqsan yahu saxiix noqdana aad ku farxayso maxaa noqonaysaa nin mutacasib haata waxaasoo dhan wuxuu leeyahay inaad niyaddaada ka jarto kow baxdiga intaadan gelin waxaasoo dhan meel iska dhig go-aankaagu ha noqdo xaqa meeshii noqotaan anigu raacaya hadduu daciif noqdo hadduu saxiix noqdo hadduu qowlu shaafici waafaqo haddii qowlu shaafici iyo maalig uu khilaafo adigu mar walba inaad xaqa la socoto wuxuu yidhi almucallimi raximah llah qofka iska daa cid kale naftiisu mararka qaar u kala tacasubayaabu tacasub ayaa naftiisa yani qofkii naftiisa dagaalamaysa maalan wuxuu yidhi marka hore mas'alo arkaya mas'aladii buu taqriirinayaa agtiisa waa ka raajix markuu taqriiriyo kadib ayuu wuxuu arkayaa wax ka soo horjeeda wuxuu shalay taqriiriyey baxigii markuu sii guda galo gadaal waxaan ka yimid ku farxi maayo buu yidhi sababta u dhibsanayo waa maxay waaba asigiiye cid kaloo wax u taqriirisa ma jirto wuxuu yidhi nafti xaaladii shalay ayay u tacasubaysaa buu yidhi xaaladii maantana way ka tacasubaysaa waa qofkii naftiisii wa intaanba la aadin bannaanka idan naftaada waa inay noqoto mid mutajarid u ah xaqa waxyaabahaasoo dhanna aada naftaada kala dagaalanto qofkuna markuu mutacasib noqdo xaq ma fiiriyo wuxuu fiirinayaa wixii hawadiisa waafaqa keliya mana jecla inuu khata ka noqdo insaankana waxaa aada dhib ku ah oo waxyaabaha ilaahay nufuusta ku beeray ka mid a in qofka uu yidhahdo waa qaldanaa shalay ceebna ma aha alrujuuc ila alxaqi waa fadiila laakiin nufuusta way ku adag tahay wuxuu leeyahay mucallim raximah llah qofka markuu baxdiga qoro inuu khata yahana uu usoo baxo yaa ogaaday inuu khata yahay baxdigii shalay asaa ogaaday cid kale ma aha wuxuu dhibsanayaa buu yidhi inuu khata ka noqdo cid kale weli ma ogaan wuxuu dhibsanayaa inuu khata ka noqdo haddii wuxuu yidhi khata'aasi shay yani mid mas'aladii uu ku qaldamay hadda weli ma faafin ogow mana faafin oo cid og ma laha cid kaloo ku baraarujisana ma jirta asaa ku baraarugay haddana maca daalika nafta ku raali noqon mayso waxaa kasii fog buu yidhi inuu faafo wixii waa nashriyey bulshadii dhexdeeda buu ku faafiyey kadib waxaa asiga u caddaatay inay khata' tahay wuxuu leeyahay dadkii bay dhex gashay hebel iyo fulaan baa ogaaday haddaad mas'aladii ka noqoto kalsoonidii bulshadu ay kugu qabeen ayaa lumaysa shaydaana u akrinaya
واسكو أتكينيا أسوء أقول إني خطأيه قفكاس متجرد ميا ما متجرد للحق وحاكسي فويري إن ضدك على يكون براروجيان أو فلان من الناس وير هذا الشيخ هو غلطنت مسألة إيش الله واقو غلطنت وابدك الله يا مركز يلي ما إلا قف إلهي حق وافجيه سبحانه وتعالى ميا قفك أرضك وحل ربع إنه أجاهده نفتيس إنه مرور بقفيس بشرات هذه أقول حداد قلدنتود كنقطه dadka agtooda sumcadaada ku dhici meesay sumcad iyo sharafaad ku yeelanaysa maxaa yeelay waxa la ogaanayaa inaad tahay qof xaq ku dadaala in badan waxaan arkay dad talabatu cilmiga kamida oo dhibsanaya shalay wuxuu aaminsanaa inuu maanta ka noqdo hadii khata uu cadaado qaarkood waaba ku cadaynayaano wuxuu leeyahay waxa la leeyahay hebel waa isbedela la leeyahay oo dadka waxay leeyihiin ninkii hebel ahaa waa daciifay موقف كيسي واسكبدلي تميع وحلا إلى هذا قلي وحسأل إليه ومن الشيطان حق هذوك عداد الرع ضدك وحي ضحيان مال اسكدك ضدك قبر كل قلي مايان سؤالها آخر القويدين أيوك هذا جواب مايان عذابك إلهي سبحانه وتعالى أنك هذا قرقاري مايان حق الرع ما شو كاجرا مركا أرنتاسي waxaan ugu celcelinayaa waa dhibaato in badan dalabatul cilmiga waqtigan haysata adam tajarrud lil haqq aad ba waxa u yar dadka dalabatul cilmiga ah ee ku dadaala inay xaq u tajarrudaan ayagoon fulaan iyo calaan midna aan fiirinaynin waana waxa laga rabo dalabatul cilmiga iyo ducaada iyo culimada kulligood wax looga baahan yahay waajib ah Allah subhanahu wa ta'ala kitaab noo soo dajiyay qiimo badan rasuul sharaf badan buu noo soo diray alayhi salatu wassalaam وحويري وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وضد إذا راعى الله سبحانه وتعالى وضد أسرع قفكي وضد أسرع فيك كوغلا النقضة وولالك كي وضد توسن خلافة عدو دونها النقضة هو آبيل هو جوجين وأنا اعتقاد السلف ومنهج السلف وطريقة أيمرين أئمة الهدى عليهم رضوان الله وأنا مدى أدر دار مجرين طلبة العلم إن إسكا إلاليان إن أيها تقليدان أما أئمة كله أي تقليدان أما يتعصبان ولا ليال وحد مدى محاضرة دي إنان ديريني وحان ربا إنان سوق وقبينه خير الكلام ما قل ودل إن شاء الله تعالى دردارا كان انت سنكسو كوبينا إلهي سبحانه وتعالى هنقرد وكوي كو انتفاع وكفى إليسته جزاكم الله خيرا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد يا رب واجعل نهجنا نهج النبي وصحابه فبنهجهم فلنقتدي يا رب وفقنا بعلم نافع وهد العباد على لزوم المسجد ثم الصلاة على النبي وآله وجميع أصحاب الرسول محمد